السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال meel kastood ka kala joogtaan adduunka dacaladiisa waqti waxay idin wacnaado sidii caadada inoo ahayd muuqaal cusub baan idinla wadaagaya. Maalmahan waxaan u yar fiirsaday oon dib u yar milixsaday waqti maxaan ku raad sooyaalkii dalka iyo hadda waqtigan aan ku jirno waxyaalaha badan ee xun ee soo noqnoqonaya ee haddana sii socda. ummaddu may ku baraarugsan tahay intee baa ku baraarugsan intee ayaana ku baraarugsanayn. waxaa ii soo baxday dadka intooda yar inay ku baraarugsan yihiin habkan ama dhaqankan xun oo lamaanahan xumaata shiilka ah ee qasriga xumaanta iyo xaaraanta lagu kariyo ee haramuus degan ay u qorsheeyeen ama ay ku xukumeen dadka muwaadiniinta reer Djibouti marxalado kala duwan bay leedahay. kuwa u sii liitay sida xun loola dagaalamay oo kuwa deegaan ka soo jeeda waxay in yar dhaama kuwa u dhashay waxa kuwa ka sii fiicanna kuwa soo galeetiga ee lagu shaqaysanaya iska noolaanaya. laakiin dhammaantoodu waxay ku wada xukumayeen haddii ay damiir yeeshaan in yaro damiir hadday yeeshaan in ama xabsi ama dil qorshaysan ama in bahsada laga dilo oo guryahoogay ka soo bixin iyagoo balwada la yeeshay. mid wuxuu noqonayaa jaad isagoo weligii cunin oo afka saarinba jaad lagu dharbaxaya. mid isagoo weligii mataqaanaa aan warwareegi jirin oo dumar aan doonan jirin ayaa guryaha bilaabay inuu ka qaawiso u fadhiisan kari layahay. midna mar adiga marka uu damco inuu xaaskiisa u galmoodo waxaa ku dhacaya wax la yidhaahdo faalid paralyse buu noqonaya. sheekadan waa sheeko xaqiiqa dad qaarkood bay ku dhacday magacdooda uma baahina ka sheekeeyo in waxaan rabaa inaan ku baraarugsanaano in taliskan haddii lala shaqeeyo oo mar ahdi lala galo waxaan ku wada xukumanahay intaada waxaan sheegayaa la heshiisay ee la shaqeysay si gaara ayaa loola dagaalamaa marka danteeda laga dhamaysto. waad arkaysiinoo taariikhdaani waa nii sheegaysa haddaad dib u milicsataan kuwii kursiga soo saaray kuwii halkan soo gaarsiiyey kuwii ay dhabarkooga fuuleen ee ku awrkacsadeen ee isticmaaleen halkii ku dambeeya waad garanaysiin intay duleeyeen dhulka ay jijideen xabsi ay geliyeen ka bacdina kaga takhaluseen. qaarkoodna xabsi lama geyn laakiin iyagoo waa la sumeeyey iyagoo noolnool oo mooday inay madax bannaan yihiin. laakiin kuwa u daran waxa waa kan aan la dilin aanna la xidhin laakiin bannaanka iska jooga bahsada laakiin laga dilay. see looga dilida waa saa nii sheegayo mid xaaskiisiiba mar ali markuu u galmo idhaahdo maba paralyse buu noqonayaaba. bal dadka aad qaraabadiina ah ee dowladda usoo shaqeeyey intay garanayaan bal ka waraysta waa laydin sheegay magac mid maaha laba maa shan maaha waa mid kastoo taliskan usoo shaqeeyey oo dibadda jooga oo nool oon la xidhin weeye. wuxuu moodayaa inuu yahay maxaan ku dhahdaa nin madax bannaan ma aha nin madax bannaan gurigiisa kama soo bixi karo. mid u waashaaba si guriga u dhex fadhiyo u dhex waashaa. mid jaad buu ku khafiifaa oo jaad baa lagu dharbaaxaa. midna waxaa lagu dharbaaxaa inuu kalba gabadhii sii socotay soo socotay inuu sii raaco soo raaco marka uu waayana guryuhu qaawis wax alle wixii mataqaanaa hormara ayuu korayaa uma aabayeelayo. qaarna paralyse bay noqdaan maba dareen bama yeeshaan mar ali markay hamoodaan ay yidhahdaan wax samee hamigiiya jirkii oo dhan baa diidayaba. waa maxay waxaas marka waxaasi muxuu yahay ma isweydiiseen maxay isticmaalaan lamaanahani muxuu isticmaalaa lamaanahan xumaata shiilka dalka haysta maxaa u seeta dheereeyey waa maxay waxaan u isticmaalo. haddaba waa nooc ka mida baabka sixirku ka mid yahay ayuu qabtaa dadka iimaankoodu daciifka yahuu qabtaa. kan iimaankiisu adag yahay isaga waxaa laga xidhayaa magaran shaqooyinka laga xidhayaa inuu ficil yeesho dhaqaaqo ayaa laga xidhayaa oo guriga un kama soo baxay wax kastaba u nacayaa wax kasta u dheelsanayaa wuu soo jeedaa wuu tukanayaa salaadihiisii laakiin wax ma qabsanayo kaa waa kii iimaanka lahayd tukanayay salaadaha oogayay. qaarna waxaa dhacaysa salaadii wixii way ka tageen ahdigii ee la galeen halkii baa laga soo raacaya. waxaani wuxuu soo raacaa dadka waa marka ay xil ku dhiibaan waa marka ay gurigooda ku casumaan ayuu waxaani wataa iyo waxyaalo kaloona carabka aan soo mari karin. lamaanahan xumaata shiilka marka idin leeyahay waa lamaano dayuusiina
واللماني كشقية فسق كشقيان sida uu faalkooga iyo sixirkooga u socdo waa inay xumaan iyo maxaan ku rahdaa ay u dhaqaaqaan waayo jinka ay isticmaalayaan shayaadiinta isticmaalayaan waa inaad macsiyad samaysid si u hirgeliyaan qorshahaaga si wax kugu qabtaan waa inaad doono noqoto adee falakada ka saarayaan muuqaal ahaan aayado quraan lagu daliisanayaa xadiisyo lagu daliisanayaa ha iloobina ibn salul abdullah ibn salul muxuha نبي قمق صلوات الله عليه وسلم منافق وينا كذبوا رسولك صلوات الله عليه وسلم ما علي مركو جمعي مساجك إيمانا ينا أمام بو سرك عجريها محاشر المحاي دقايست النبي قال وإلهي با صادر تورني مركا صادر لغب حنا دورك كدلي وي وكتوغني وي وكقرشاني وي مركا ومنافقين وي إلهينا ونوشي القرآن كيسوحوري إن المنافقين لكاذبون منافقين تو بين العيال مركا ولا ليال هذا اللي يكون دالين مايو waxaan rabaa inaad baraarugtaan war ninka adeerkiina in adeerkiina aabihiin walaalkiin bal qoyskiina qaraabadiina dariskiinaba eega waad arki doontaan waxaan idin sheegayo inuu saameeyo si toos ah ama si dadban bahsada ayaa laga dilaa dadka reer Djibouti muwaadiniinta reer Djibouti gaar ahaanna waxa si xawliya loola dagaalamaya si ay damiir u yeelanba si ay u yeelan hammi iyo u noqon dad damac yeesha ayaa bahsadooda laga dilaa si gaar ahaaneed kuwa deegaan ahaan ka soo jeeda dalka ilaahay halkan dhigay marka waa in maskaxdiinu ay shaqayso u fiirsada dadkeenu waxa ku dhacay maxay ku dhici kartaa dadkeenu wax bartay ee taliska la soo shaqeeyay maxay la wada aamusan yihiin ma iyagoo qaaqaban ba sawir laga duubay ma iyagoo dumar kale la kulmanaya ma iyagoo maxaan ku rahdaa waxyaalo xun oo dhaqamo xun sameynaya wax laga duubo laga hayaa mise qaar baa dumarkoogii loo weydaartay iyagii oo ku maqan safar oo laga duubay muuqaal yani waxay sameeyeen xataa kanadan aan jooga imika dad baa jooga halkan bahsadii laga dilay oo dowladda u soo shaqaynayay oo maxaan ku rahdaa waxyaalo xun oon afka aan soo mari karin lagu sameeyey magacdooda ma baahnina sheegno ujeeddada aan rabo waxa weeye walaalayaal war ma been baan isku sheegnaa mise xaqiiqdan ka hadalnaa cadowgeena iyo sadiiqeena waa inaan kala garanno maaha inaan ku mashquulno maxaa naloo dilayaa maxaa se noogu galayaan maxaan anaku galabsanay aabbayaasheen waxay sameeyeen adeeradeen waxay sameeyeen awoyaasheen waxay sameeyeen walaalaheen waxay sameeyeen naga waaweynaa annaku mas-uul kama nihin mad iyaga isoo fuud waxba kama gelin iyaga mar haddaad dhiigoogii leedahayba adaa lagula dhacaya waa iyaga waa la gaari waayey adaa carada lagula dhacaya ubadka sii dhali doona ayaa lagula dhici doonaa oo saa loo geli doonaa ubadkooga ku barbaariyeen in ay saa ugu sii wadaan laakiin ilaahay kuma jiro shaydaan baa u qurxiyey camalkooga zuyina lahum ashaytaanu acmaalahum bilaa qur'aankiisa ku leeyahy xumaanta kuwa wada shaydaan ayaa u qurxiyey waaba fashilayan yihiin adduunkan bay dullaysan yihiin iyagu inay wax haysaan bay moodayaan iyagu inay wax qorsheeyaan bay moodayaan iyagu inay dad cadaabayaan ay dad saa u galayaan bay moodayaan laakiin ilaahay kaarafuurku ku sugaya weecadku ku sugaya goola dayare xagga dambe ayuu ku sugaya marka waxa way walaalayaal dadkan markii lixaad rabayna soo noqdaan aanu ololaynayno waliba gaar ahaan waxaan la hadlayaa kuwan taageersan iyagoo waxba haysan uu afkoogu wada qarmuun yahay uu guryahoogu soo butaacayo muulalku soo butaacayaan ay bila koronto la'aan hayso ay biyo la'aan hayso biyo xun oo qashin oo bacteria iyo chemical ka buuxaan oo waxba loo qiyaasin ayaa xaafadahooda ka buuxa haddana waa kuwa kule mar lixaad soo noqo damiirkii maxaa ka dilay dadka markaa isweydiisaan waa dadkan waa dad maqaara waa maqaar socdoon baasadaa laga wada dilay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo gargaara dhammaanteen ilaahay nasrigiisuna wuxuu noo iman iyo gargaarkiisu marka annaku isgargaarno annaku intayna waa inaan qabanno اللهم هل بلغت ما اتري ما ماشى تالا وبالله التوفيق إني ناسح لكم وإذا لا تلينيا وهم بإذن حسوسينيا هددها لغقعوا وإسكي اسكو بدل ما جرتو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته